السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي وحنا سيديتين مي في عنتين أنا ودين وناكسنهاي كسو دوادا فيديو أموني روتين وحر كوربان سو كعي وحسو سميستي شاحي جيراي ugu taqaaniin oo ka samaysnaa zanjabiisha dhanaanta biyaha kulul iyo green tea-ga kadibna waxaan soo qaatay boardkaas oo wax lagu qorto saaka waxaan rabaa intaan quraac kala kacsan u sameeyo xaajiga aan quraacdeedii diet ka ahayd cuno inaan IKEA aado oo aan rabadaan shopping soo samaysto soo boardkan soo qaatay waxaan ku qorqoranayaa waxyaabaha muhiimka ah oo aan uga baahanahay IKEA inaan ka soo iibsado si aanan u kala iloobin wixii halka ku qorqoranayaa shaaxayga yarka ahna dee waa cabayaa halkaan waxa igu baxay waxa waaye shumac soo waa kana waxa wixii oo dhan soo qorqortay oo muhiimka ahaa oo aan IKEA ka soo iibsan lahaa markuu toolo markaan soo iibsado mid walba tick baan saaraya soo shaaxayga yarana intii aan waxa qorqoranayay baaban isagana aan ku dhaxabay qoraalkan ku dhaxabay soo qoraalkayga markaan soo dhameystay jikada ayaan imaaday waxaan rabaa inaan quraac xaajiga uga soo tuuro quraacdan saaki xaajiga u sameeynayo waxa la dhahaa chicken fajita soo waxaan soo qaatay chicken waxaan soo qaaday midkii aan chickenka ku jarjaran lahaa shabagan yar waxa igu jira 3 nooc oo barbarooniyaal ah iyo basal waxaan halka ku soo diyaarsaday xawaashiyaashi iyo milixdii iyo saliidii aan chickenka ku dari lahaa soo chickenka aan isticmaalayo waa chicken boneless ah oo bilaa laf ah xalay baan soo iibsaday talaagada qaybta hoose bilaa barafka ah baan gashtay aniga subaxnimadkii wixii aan ku quraacanayo aroortii waxaan ku quraacanayo habeenkii aan sii diyaarsadaa si ay mar dhowtoole gebgeb iigu noqonin habeenkii aan kasii fikiraa wixii aan cuni lahaa oo aan sii diyaarsadaa hawl fudeyd si camal soo waa kaasa chickenkiisa ujeedaa waa gogoostay si yar oo gaagaaban oo khafiif ah baa chickenkii aan usoo wada jarjaray kadibna waan soo maydhay bileedkaasaan kusoo ritay kadibna madeebadanba waxaan ku diyaarsanayaa xawaashiyaashii aan chickenka ku dari lahaa xawaashiyaash waxay ka kooban yihiin mindi spices filfil waxyaro basbaas cas ah milix nooca pink saltiga la dhahaa isticmaalaya waxyaro oregano ah iyo waxyaro saliid ah soo xawaashiyaashii saliidii wixii oo dhan waxa waaye si fiican aan isugu walaaqaya isugu qasaya kadibna chickenkii ayaan ku soo darsanayaa soo hadana chickenkii iyo xawaashiyaashii baan si fiican isugu walaaqayaa soo xawaaye xawaashiyaashu ay chickenka lafta uga galaan intaan isku soo walaaqay kadib chickenkii waxaan ku soo shubtay mashiinka oo la dhaho air fryer-ka mashiinkan baan ku shiili doonaa 8 daqiiqo ku jiri doonaa air fryer hadaa haysanin oven baa gashan kartaa amba daawa ku duban kartaa soo waa kaasa 8 daqiiqan air fryer-ka aan chickenka aan ku soo shiili doonaa insha Allah soo halkaan waxaan ku gogoosanayo waxa waaye 2 xabo yar oo basal ah iyo 3 jeex oo barbarooniyaal ah barbarooniyaasha waa akhtar waa casaan iyo huruud soo waxa weeye intii aan barbarooniyaasha iyo basasha aan gogoosanayay chickenkii aaba soo bislaadayba waa kaasa chickenkii saas uu noogu soo shiilmay uu bisayl noogu yahay diyaar iyo nus waaye waxa weeye chickenkeeni soo hadana maqligii ayaan dabka soo saartay waxaan ku soo shubay basashii waxaan kaloo ku soo dirsaday saliidii soo waxa waaye basasha iyo saliida ayaan waxa waaye wax yar isku yara shiilinaa 1 daqiiqo 2 daqiiqo markii ayaa 2 daqiiqo isku shiilay basasha iyo saliidii waxaan ku soo dirsaday 3 nooc barbarooniyaasha ah wax yar oo filfil ah iyo wax yar oo oregano ah kadibna intana hadana dib iskugu shiilayaa fadlan walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa inaad channelka ila garab qabataan oo subscribe iyo share iyo like iyo comment-ga ay igu dadaashaan kuliba u jeeda waa daawaneysaan bal asxaabtiina la share gareeyo oo channelka meel dheer ila gaarsiiya idinka la'aantii waxa waaye wax shaqeynaya ma lahane soo cuntadii waxa waaye milixdii baan ka hilmaamo milixdii baan gadaal kaga daray kadibna cabaar baa isku shiilayay basashii barbarooniyaashii markay saan u ekaadeen waxaan ku soo darsaday waxa waaye chickenkii aan air fryer-ka ku soo shiilanay kadibna intaan si fiican suuq yar walwalaaqay waxaan ku soo darsaday biyo chickenku uu qalalan yahay khudraddan way qalalan tahay marka si wax yar oo waxa weeye qoyaan ay u yeeshaan darteed waxa weeye biyo ugu soo dar hadii kale ma dhowtoolade cid cuni mayso qallayl saa'iday noqonayaan soo waa kaasa dhowr daqiiqo dabka isla saarnaayeen saan ayuu ku soo baxay chickenkii qoyaan yar oo lagu cuno buu yeesho uu yara qoyay qalaylkii zaidka ahaa ka ba'ay soo waa kaasa waxa waaye hadda dabka ayaan ka diminayaa saas ay diyaar noogu tahay chicken fajitadeeni
soo haddana aniga ayaa quraacdeedii diyaarsanaya weli dhaydkii baan ku jiraa. soo quraacdeedan saaka diyaarsanaya waxaa waaye wheat bagas 2 xabadood oo wheat bagaskii aan soo qaatay waan burburiyay saa ujeedaanba. kadibna waxaan kusoo dul darsaday jeex moos aan soo jarjartay iyo blueberry. kadibna waxaan kusoo darsanayaa wax yaroo chai seed ah, biyo iyo chai seed baan muddo isku soo yara radiyay. soo chai seedkii aan korka kaga soo daray oo aan biyo kusoo radiyay. kadibna waxaan kusoo darsanayaa midhaha pumpkin seedka la dhaho oo kuwa akhtarka ah. kadibna waxaan kusoo darsanayaa caano. soo kaas hadee wax kale kuma daraayo. saas ay quraacdeedii ay diyaar igu tahay. soo waa kana waan soo qaaday cuntadii halkaan iyo miiskii cuntada ayaan kusoo diyaariyay quraacdii. madeebada quraacdeedii ay ku jirta dhinacan waa quraacdii xaajiga. halkaan waxaan kusoo shubay waa chickenkii. shaax baan soo kariyay. waxaan soo qaaday 2 xabo rooti ah. waxaan kaloo soo qaaday bakeeri. waa kaas saas quraacdeedii kusoo diyaariyay saaka way diyaar noogu tahay. soo hadda waxa weeye quraacdeedan cunaynaa quraac wanaagsan. soo guys markaan soo cunteeyay waan soo quraacday kadib waan soo labistay waan soo baxay. sida hore idinku sheegayba waxaan imaaday halkaan iyo stoorka weyn oo EKL dhaho. waxaan rabaa inaan Ramadaan shopping aan soo sameeyo maanta oo shoppingkii Ramadaanka iyo weelkii iyo sharaxaadii guriga iyo waxyaabahaas aan aan ka soo iibsado insha Allah. Ramadaanta hadda 22 cisha ka hadhay laakiin waxa waaye xilli hore aan iska sii bilaabanaya adeegayga si ma dhow toolada waqtigu uusan iigu yaraanin oo isu Ramadaanta hoosta iiga soo galin amba dee lacagtaan ugu talagalay shoppingkan aysan iigu baxsaninba. soo aan imid waan soo galay markaa soo gashid meesha ugu horeyso waxa waaye furniture-kii waxyaabahaas because wax walba waa lagu iibiyaa. soo aan furniture uma baahnayn qaybta weelka imid. qaybta weelka indhadraandar waaye weel ay nooc baa dhex yaala. waxaa isdhahaysaa waxaan dhan yaa inta kuu guriga kuu geeya. aniga waxaaba moodaaba weelka in la igu falay weelun baan saa u dhex taaganahay weelun baan soo iibinayaa gurigeyga weel buu la ciiraya mana joojin karaba inaan iska daayo. waxaas dhe malaha weel soo iibinta waa lagu falayba. soo waxa waaye waxaan dhahay anoo dhex wareegaya oo shoppingka sameysanaya hala iga duubo taasa waa la i duubayaa. waxa waaye kildhiga yar baan arkay aad iyo aad buu qurux badan yahay laakiin lacagtiisa inaba caadi ahayn qaali dhaaf buu ahaa. soo aan isaga soo tagay kildhigii kadibna anoo dhexda soo maraya waxaan arkay muraayadan. kadibna waxaan dhahay waa inaan asxaabteeda istusiyaa sidaan u yaalo oo aan maanta u labisanahay. waa kaas saasaan u oolay. kadibna qaybta geedaha imid geedahan qaybna waa artificial oo waa caag qaybna way nool yihiin. soo caagana waan rabaa kuwa noolna waan doonayaa. soo caaga noocan aan jeclaaday waxaan doonayaa inaan fadhigayga halkaan xabo aan ku sharaxo saas uu eegyahay. kii aan soo qaatay basketkeyga aan kusoo ritay kadibna qaybta nooleed baan imid halkaan xabaan ka qaatay geedkan yarka ah uu iska jaban yahay. geedaha aad bay qaali u yihiin midkan baa ugu jabnaayo $2 ahaa kii kana soo qaatay iyo mid hore flower ah. kadibna qaybta waxaa imid go-yaasha targetkeygu inaan go iibsadaba kuma jirin haddana waa iska soo qaatay le wixii aan ugu talagalay inaan soo iibsado iyo wax kaloo ka badanba waa sitaa. kadib 3 saacadood aan dhex wareegayay meeshii hadda lacagta lagu bixinayay baa imid. gabadhaas ay ugu horeysay gabadhii aan daba istaagay waa kaasaa meeshii alaabtii laygu yiri dhigdhig meeshii aan dhigdhigay waa kaas ayada jiidatay alaabtii si computerka u geliso. waa kaas waxa waaye hadda bilinkii aan sameynayaa alaabtan badan lacagteedii ayaan bixinayaa. soo waa kana waan soo bixiyay alaabta lacagteedii adeegay waan soo dhamaystay waan soo baxay. hadda waxaan rabaa intaan guriga tago alaabta dhigo inaan shaqada galo xilligii shaqadeeda la gaaray. waa kaas fiidiyoga intaan ku joojinayaa waxaan leeyahay maca salaama.